laablakac lur baa ka dhasha waxaa halqabsi laga dhigtaa jirka aadanaha markuu walwal iyo walbahaar dareemo isla markiiba waxaa daciifaya difaaca jirkiisa ee cudurrada ka difaacaya ee loo yaqaan immune systemka maadaama maankiisa uu ku jiheeyay khatarta soo food saartay xaaladaas hadduu wakhtigeeda dheeraado jirka iskama difaaci karo cudurrada soo food saaro sidoo kalena dalalka ay colaadu ku raagto waxaa daciifo awoodooda dhaqaale awoodooda siyaasadeed taasoo dilaysa horumarka bulshada dalkeena hooyo markaa si fiican u fiiriso shantii balaayo oo awowayaasha Soomaaliyeed oo ay ka duceysan jireen oo ay ka magangeli jireen ayaana haleeshay marka aad fiiriso maamahayada shanleyda loo yaqaan shan balaayo Allah laga magangalaa caro aan laga soo noqon ceer aan laga dhaqan colaad aan laga heshiin cudur aan laga boogsan cilmi aan lagu intifaacin markii aad fiiriso intaas oo dhan waana haleeshay si taa daawo loogu helo walaalayaal waa inaan sida dhakhtarka bukaanka taariikhdiisa u fiiriyo si uu daawo ugu helo bukaanka anagana waa inaan taariikhda aan dib u eegnaa meesha ay wax ka khaldameen taariikh ahaan markaa fiiriso intuu gumaystaha imaan habdhismeedka bulshada Soomaaliyeed waxay ahayd nidaamka loo yaqaan tolka ama dababka tolka ma aha qabiil Soomaalida badana waa isku khaldaan nidaamka tolka waa bulsho isku xiran oo wadaaga deegaan oo ceel iyo carshin ka dhaxeeyo beer iyo badba wadaaga xukun iyo xeer ay wada dhigteen uu ka dhaxeeyo danahooda isku mid yihiin ma midayso dhalasho waxaa miday kaliya deegaan iyo xukun marka aad fiiriso habdhismeedka bulshadaas garsoorku wuxuu ahaa mid aad u heer sareeyo ilaa waxay gaartay qofka haddii la yiraahdo waxaan ku qabaa gogol qofka wuxuu xoogga saari jiray inta aan gogasha la gaarin inuu qofka iska xaal mariyo oo ama gogasha la isku tagin cadaaladda iyo barwaaqadana waa isdaba socdaan xilligaas bulshada Soomaaliyeed barwaaqo darteed waxay gargaar u diri jireen dowladaha khaliijka oo markaa taag darnaa gumaystuhu taariikh ahaan bulsho dhismeedkan dhibaatooyin badan oo naf iyo maal ah ayuu kala kulmay oo bulsho dhismeedkan ayaa waxay ka jiri jirtay deegaano badan oo Afrikaan ah sida Suudaan Soomaaliya si uu taa uga hortago gumaystuhu wuxuu keenay nidaamka loo yaqaan indirect rule ama xukunka dadban taasoo uu bulshadii u kala qaybiyay qabiil ahaan una qeexay qabiil ahaan taana waxay u sahashay gumaystaha markuu isku khasay siyaasadda iyo qabiilka inuu asagoo ciidan yar wato uu dalal badan oo dhul badan uu yani gumaysto uu yani uu maamulo dabcan dhulkeeni hooyo waa jiray qabiil waana jiri doonaa laakiin qabiilku bururka siyaasadeed ee sumaysan waxaa sabab u ah siraqda siyaasadeed ee qabiilka ku xiran ee gumaystuhu dalal badan uu dhigay qabiilka walaalayaal sidiisaba markaa eegto haddii loo adeegsado sida uu ilaahay ugu talagalay is-aqoonsiga waa sida cinabka oo kale laakiin haddii siyaasadda lagu qaso cinabkii ayaa waxa isu bedelaya khamri taasoo sakhraaminaysa bulshada oo dhan waana aragnay bulsho ku sakhraansan qabyaaladda qabyaaladdu waxay ciriiri ka dhigaysaa qulubta bulshada taasoo keenaysa cudurkii ahaa aan wax qalano midiyahan kala qarsano qulubta intay markay ciriiri noqotana dhulkii oo dhan ayaa ciriiri kula noqonayo dhulka Soomaaliyeedna waa dhul aad u weyn dhulka nin nool iyo nin dhintayba wuu deeqaa sidaas darteed walaalayaal waxaa naga waana ah inaan gudaheena dib isugu laabano oo aan iska nadiifino habfakarka sumaysan ee qabyaaladda lana imaano habfakar cusub oo ku dhisan caqli wax garta oo u furan fikradaha kale ee walaalkii Soomaalidu waxay tiraahdaa yaaqyaanba ma goyso ayagoo ula jeeda kartida iyo adkaysiga ee uu geedka uu leeyahay dalalka hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah sida dalkeenana waxaa lagu tilmaamaa sida geedkaas yaaqda ah khubarada ku takhasusa geedka waxay leeyihiin geedka yaaqda ah wuu dhintaa laakiin kuma dhinto dhibaato dibadda ugu timid wuxuu ka dhintaa gudaha bakteeriya gudihiisa ka dhalata ayaa geedka yaaqa ah disha
anagana markaa fiiriso Soomaali ahaan gudaha ayaan ka dhimanaynaa. dhibaatada ina haysto waa gudaha. waranka colaada anaga isku taagnay, cadowgana waa nagu ligligayaa. marka haddii aan iska siibno waranka colaado anaga isku taagnay, cadowga dibadda waxa uu nagu ligligo ma helayo hadduu alla yiraahdo. ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaaliyeed waa hantida ugu weyneed uu dalkeena alla ku banaystay. tamartooda iyo xamaasadooda waa sida shidaalka oo kale. shidaalka dhibna wuu leeyahay, dheefna wuu leeyahay. shidaalka haddii taraq lagu daaro holac ayuu keenaa oo burbur ayuu keenaa. sidoo kalena shidaalka haddii lagu shubo makiinad ama gaari waa ku socodsiinaya. waxaa lagama maarmaan ah inaan tamarta dhallinyaradeena aan u jihayno horumarka dalka. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inay aragti fog lahaadaan oo ay nabadana hormuud u noqdaan. tusaale ahaan dagaalkii sokeeye ee Madiina al-Munawwara ee khotada dheeraa waxaa soo afjaray dhalinyaradii reer Madiina, ayagaana heshiis ula saxiixday nabigeena Allahumma salli wa sallim calayh. ha noqonina indhaku garaadle oo suga kaliya inta ay jugta ugu dhacayso. noqdo qof aragti fog leh. taa waa tii uu ka digay abwaan gaariya Allah u naxariistee markii uu yidhi deganaano uma dhalan, dubaha igu soo maqan lagu sii dareemo, jeer dakharka igu dhaco kama sii digniin helo. walaalayaal, hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa qalbiga ka ilmoonaya. ilinta qalbigana waa ka xanuun badan tahay midda indhaha. ogow caruurteena su-aasha ayna weydiin doonaan ma aha siday wax u dhaceen. su-aasha ugu weyn ayna weydiin doonaan waa maxaad ka qabateen. jawaabtuna idinka ay idin taalaa walaalahayga. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo TV-ga caalamiga ah Universal TV. baarak allahu fiikum.